الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan ku jirnaa walaalayaal marxalada labaad mustawigii koowaad kitaabkii labaad mabaaxid fi usuul الdiin ee ku saabsanaa maxaasinu diin الإسلام ama kamaalu الإسلام. waxaan ku jirnay kamaalu الإسلام fi siyaasa, sida diinta islaamku ay ugu dhammaystiran tahay siyaasadda arrimaha la xiriira. sheekhu wuxuu yidhi siyaasaddu waxay u qaybsamaysaa siyaasa daakhiliya iyo siyaasa khaarijiya. siyaasada daakhiliga ahna waxay ku taagan tahay afar asaas ama afar qodob oo asaasi ah. qodobka koowaad wuxuu yahay falcalaaqatu bayna alxaakimi waalmaxkuum, xiriirka u dhaxeeya midka wax xukumaya iyo kan la xukumayo. likulli minhumaa fiiha wadiifa, mid walboo labadaa ka midii calaaqada dhexdeeda wadiifo iyo howl isaga la raacinayo ayuu leeyahy. mid walbaahi daw iyo mas-uuliyad isaga saaran ayuu leeyahay. fa wadiifatu alxaakimi, midka wax xukumaya hawshiisu annusxu fi lxukmi, waa inuu nasiixo ku sameeyo xukminta uu xukumayo, maamulka uu wax maamulayo waa inuu ugu khayr miiro dadkii uu maamulay ee shacabka ah ee muslimiinta ah. bixaysu yakhtaaru akmala turuqi, heer uu dooranayo waddooyin midda ugu kaamilsan, wa aqrabaha midda ugu dhow lixusuuli masaalixi almaxkuumiin, dadka la xukumayo masaalixdoodii helideedii waddada ugu dhow ee masaalixdooda lagu heli karo ee ugu wanaagsan waa inuu doorto. fi dunya walaakhira, adduunya aakhira masaalixday lahaayeen. falaa yunafidu amran walmaslaxatu fii mancihi, arrin ma fulinayo iyadoo maslaxadu ay ku jirto arrinkaa in la celiyo oo la diido. arrin in la diido maslaxadu ay ku jirto inuu fuliyo ma ah. haddii kale wuxuu noqonayaa waajibkii saarnaa iyo hawshii saarnayd mid aan ka soo bixin. waa inuusan fulin amar iyadoo maslaxadu in la diido ay ku jirto. walaa yamnacu amran walmaslaxatu fii tanfiidi, arrinna waa inuusan diidin iyadoo maslaxadu in la fuliyo ay ku jirto. oo markaa wuxuu noqonayaa hawshiisii mid aan ka soo bixin. walaa yuwalli alacmaala, howlahana uma dhiibo ila alakfaa'a, kuwa u qalma maahan. howlaha iyo jagooyinka iyo shaqooyinka uma dhiibo oo uma bannaano inuu u dhiibo ilaa dadka ahalka u ah maahan oo qaba kara. laakiin haddii qabiil uu u fiiriyo ama maaragtay qaab kale isagu uu fiiriyo oo uu eex sameeyo oo xafiiska la isaga dhiibo qof un, shaqadiina way dayacmaysaa, dadkiina dulmi ka bixi maaya, maslaxadoodiina ma xaqiiqsamayso. marka howlaha waa inuusan u dhiibin ilaa kuwa u qalma oo ahal u ah maahan. walaa yuwallii shaksan calaa camalin, qof shaqo uma dhiibo wagayruhu aslaxu lahu minhu, iyadoo qofkaas cid aan ahayn camalkaas ay uga wanaagsan tahay. qof waa inuusan shaqo u dhiibin iyadoo qof kale oo shaqadaas uga wanaagsan la heli karo. qaala allahu tacaala, allah wuxuu yidhi ina allaha ya'murukum, allah wuxuu idin amrayaa an tu'addu lamaanaati, ammaanooyinka inaad gudataan ilaa ahlihaa, dadkii ahalka u ah inaad u gudataan. ammaanadana waxaa ka mid ah howlaha dadka loo magacaabay ammaano weya. mas-uuliyadda lagu dhiba waa ammaano. marka ciddii mudnayd inaad u dhiibto ayuu allah ku amraya. wa qaala nabiyu sal allahu calayh wasalam, nabigu wuxuu yidhi maa min amiirin, ma jiro qof madaxa yeli ee qabanaya amra almuslimiin, muslimiinta taladooda, uma laa yajhadu lahum, kadibna aan u dadaalin, wayansaxu aan u nasiixayn u khayr miirayn, ilaa lam yadkhul macahum aljanna, ilaa jannada la geli maayo. ninka madaxda ah ee talada muslimiinta qabta ee muslimiinta aan u dadaalin ee aan u khayr miirin, jannada la geli maayo ayuu nabigu yidhi sal allahu alay wasalam. yani naar buu gelaya qofkaas. rawaahu muslim. wa qaala sal allahu calayh wasalam, rasuulku wuxuu yidhi man istacmala rajulan min cisaabatin, qofka shaqaalaysiiya nin qolo ka mid ah, wa fii tilka alcisaabati, qoladaasna waxaa ku jira man huwa ardaa lilaahi, mid allah raaligeli og, minhu kaa ka raaligeli og oo yacni shaqadaa ka qaba og, faqad khaana allaha, qofkaasi allah buu khayaanay, wa khaana rasuulahu, rasuulkii allah buu khayaanay, wa khaana almu'miniin, mu'miniintana waa khiyaanay. rawaahu alxaakim. wa qaala saxiixu lisnaad. marka qofka shakhsi madax ka dhiga, nin raga howl u dhiiba maalan, iyadoo meesha dadka jooga laga heli karo qof shaqadan ka qaba og oo ka xaqiiji og maslaxadii, qof khiyaano sameeye weyn, mas-uuliyaddiisi buu khiyaano qofkaas. marka qodobka koowaad ee ah mas-uuliyadda xaakimka saaran ama qofka talada haya
وإن نصيحة وليما ضاعت نمو يا خير مير وإن وليما قضبك الله وضوحه العدل بين الرعية تدك رعية إلا ما مليو الشعب كدحدود عدالة وإنه كسميو في تنفيذ أحكام الله أحكامتي الله فلنتي دي عدالة وإنه كسميو بحيث لا يحابي أحدا هير قفنا أوسن حنين في إقامة الحق والعدل وقدي إيو استاجنتي حق إي عدالة إذن وإنه سنقايح قال الله تعالى الله وعير إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها الله وعد الأمر يا أماناتك إن أدو قدتان وآتيسان كوي أهل كوها إلها مضنا وإذا حكمتم بين الناس مركي ضدك أتكال حكمين إيسانا أن تحكموا بالعدل عدالة إن أتكال حكمسان marka garsoorkii waa inuu noqdo mid cadaalad ku dhisan haddii xaakimkii meelihii uu u sameeyey garsoorka oo dadku in lagu kala saaro oo qof walba xaqiisa in lagu siiyo oo kan daalimka dulmiga loogu talagalay asaasan ay noqoto midaan cadaalad ku dhisnayn xaakimkaasi hawshiisii ma uusan ka soo bixin inna allaha nicma yacidukum bih allah waxaa wanaagsanaaday arrinta uu idinku wacdinayo idinku waaninayo inna allaha kaana samiican basiira allah wuxuu ahaaday mid مقلية وحد كهذا ليسان وأركية وحد سمينيس وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وحير لو أن فاطمة بنت محمد سرقت هذه فاطمة إن محمده أي وحد لها لقطعت يدها قعنت يدها نقول لها متفق عليه معنى ذو محي وبقر كجبديسي مثلا بقر كجبديسي هذه وحده أما ظلم أي سميسه عدالة يكرسور كواني ولا سمنت هذا كله oo dadka kale wixii lagu xukumi lahaa iyada waa in lagu xukmiyo waa inaysan imaanin marnaba wadiifatu almahkuum qofka la xukumayo shaqadiisuna waxay tahay an-nusxu lil haakim midka wax xukumayo inuu isna u khayr miiro oo u nasiixeeyo wa irshaaduhu inuu hago oo u toosiyo bi aqrabi wasiilatin tariiqa midda ugu dhow yaxsul biha almaqsuud ujeedku uu ku imaanayo inuu ku toosiyo haakimka qofka madaxda laga dhigay waxa madaxda ka dhigay waa isla bulshada ayaga madax ka dhigay bulshadii marka iyaga laga rabaa qofkaas madaxda laga dhigay inay garab istaagaan oo wadada ugu wanaagsan ee maamul wanaag uu ku imaan karo maslaxadii lagu xaqiijin karo ujeedkii hadafka lagu gaari karo inay tusaan marka khayrkii waa inay u tilmaamaan sharti inay uga digaan liqawli nabiy sallallahu alayhi wasallam nabiga qowlkiisa baa u daliil uu yiri inna allaha yarda lakum thalathan allah saddex arrimood buu raali idinkaga yahay أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا الله إن تعبدان وشريك أن أير وأرنت كوا وأن تعتصموا إن تكون دكتان بحبل الله الله حرقيس جميعا دمانت ولا تفرقوا يا أدنى كالتجين إسلام كي قرآن كي حقي إن ضغط قبستان وأدنى كالتجين أرنت سدحاد وأن تناصحوا إن النصيحة حيسان ومارت أدو خير ميرتان وضاعد أدو نقطان من والله الله أمركم أحد كالله تلدين أوديبه qofka ilaahay taladiina uu dhiibo inaad adinkuna daacadu noqotaan oo aad u khayr meertaan rawaahu muslim taas buu allah raali idinka gay laakiin haddii shacabkii iyagu khayaano aysan ka baxay oo maanta dhan ay lu goynayaan oo xeelado kala duwan ay la imaanayaan oo siyaalo kala duwan iyagu dulmigii iyo gardaradii iyo cadaaladii in laga fogaado ay iyagu uga shaqaynayaan iyagu mas'uuliyadoodii ma aysan ka soo bixin qodobka labaad wuxuu yahay qofka maxkuumka ah qofka la xukumayo dadka la xukumayo ee laga rabo taacatuhu xaakimka in la ateeco fi ghayri macsiyati illah allah wixii lagu caasinay intaan ahayn wixii allah lagu caasinayo maahan inta kale waa in lagu ateeco xaakimka qofka madax haddii laga dhigo macnaheedu waxa weeyaan adiga ayaa warka goynaya bulshadu haddii ay wada taliso foodo ayaa imaanaysa sababta dadku isku caqli ma isku fikir ma isku dan ma isku daacadnimo ma qofka madaxda sideedaba waxa loo sameeyaa inuu talada kala gooyo marka haddii talada uu gooyo adiga ama ku qanacsanaa ama ha ku qanacsanaane waa inaad qaadato inaad marka ateecdo warkiisa yeesho waajib weey adiga ku saaran liqawli llahi tacaala allah qowlkiisa u daliil u yiri yaa ayuha alladina aamanu dadka mu'miniinta wa atiicu allah ateeca oo warkiisa qaata وأطيعوا الرسول كأطيعوا وركي سقات وأولي الأمر منكم كوة تلد الصاحب كهيرين كمد إيجانا أطيع وركو دقات أولي الأمر كان وحل وفصل العلماء والأمراء وعلماء إيو مدح ذوية لبضاء بالشدي كمدة إن لا أطيع وركو دا أيها واجب
fain amara bimacsiyati illaahi wax allah lagu caasinayo lagu dembaabayo hadduu amro kii madaxda ahaa falaa samca walaa taacata maqal iyo atiicid midna ma jirto warkaas laga dhegaysan maayo laga yeeli maayo falaa samca maqal ma jiro walaa taacata iyo atiicid limakhluuqin mid makhluuqa la maqloo la atiico fii macsiyati alkhaaliq allihii khaaliqa wax lagu caasinayo lagu atiico liqowli nabiyi sal allahu calayh wasalam nabiga hadalkiisaa ku tusinay uu yidhi alsamcu waataacatu cala almar'i almuslim wax maqal iyo wax yeelid ayaa waajib ku ah qofka muslimka fiima axaba wa kariha wixii uu jeclaado iyo wuxuu necbado labadaba inuu ku maqlo oo ku ateeco go'aankaas adiga waad jeclaatay waa u begtay waa ku qanacday iyo maya waad ka xumaatay waa necebta raalli kuma tiid waa inaad qaadato waajib weeye alsamcu wataaca maa lam yu'mar bimacsiyatin dembi haddii aan la amrin faidaa umira bimacsiyatin falaa samca walaa taaca mar haddii dembi la amro dembigaas maqli maayo mana yeelayo ma samaynayo muttafaqun calayh qodobka saddexaad wuxuu yahay arrinta saddexaad ee laga rabo dadka la xukminaya shacabka alsabru calaa dulmihi wa jawrihi xaakimka dulmigiisa iyo jawrkiisa in loo sabro loo dulqaato waa qof bani aadama sida badanna qofkii madax noqdaahi jawr iyo dulmi wuu ka imaanaya cadaalad darro way ka imaanaysaa wax isdaba marsiis baa imaanaya waa in la dulqaato marka sababtoo kan hadda aad siibtay mid kala saarto berri isla meeshii unba haddana isla xaaladii baa imaanaysa waxaana marar badan imaanaysa haddii midkan meesha xoog looga qaado iyo hantaaturre hadhowba in maslaxadu ay hagaagi weyso dhiig badan meesha uu ku daato kharibaad badan ay ka timaado waana shay mujarab annagu soomaali haddaan nahana si fiican baan u garanaynaa marka in loo dulqaato xaakimka ma aha in la leeyahay isaga dulmiga waa u fasaxan yahay oo jawarka wuu samayn karaa oo dadkii waa dhici karaa oo waa maaragtay dulmin karaa ma ah taas xaaraan bay ka tahay isaga marka lala hadlayo ilaahay ka cabso baa laleeyahy waa inagii soo marra waa inuu u khayr miiro maslaxadoodii inuu xaqiijiyo ayaa waajib ku ah xataa arrin iyaga aan xadgudub ku ahayn laakiin maslaxadoodii aan lagu xaqiijirin isaga xaaraan bay ka tahay iskaba dhaaf inuu ku xadgudbe oo u dulmiye oo mafsado uu la yimaado laakiin annaga ka shacab ahaan markaan isla hadlayno waxaa waajib ah oo sharcigu uu nafaraya xaakimka qofka madaxda dulmigiisa iyo jawrkiisa inaan u sabarno dulqaadano liqowli nabiyi sal allahu calayh wasalam nabiga qowlkiisaa tusinaya man ra'aa min amiirihi shay-an amiirkiisa qofka ka arka shay yakrahuhu oo necbaysanayo falyasbir ha sabr qofka madaxda adiga kuu ah haddaad ka aragto shay aad necbaysanayso aad kahanayso waa inaad sabarto sabarkaas marka waa laba daran mid dooro weeyaano laba dhibaato dhibkan yare hadda isagu wuu kuu geystay iyo haddii aad ku baxdo fitna ay timaado wixii ka imaan lahaa ee dhibaato aha inaad midka roon xoogaa hadda doorato taas unbay u laabanaysaa fa innahu man faaraqa aljamaaca arrinku wuxuu yahay qofka jamaacada muslimiinta faaruqa aljamaaca waxaa loola jeedaa waa qofka madaxda iyo dadka ku tixan ee maaragtay la socda waa imaamu lmuslimiina waman macahu jamaacadu intaas weeye aljamaacatu siyaasiya baa la yidhahda jamaacadii siyaasiga ahayd weeye marka qofkii madaxda ahaa iyo intaa ateecsanee la socota qofka ka tagaahi shibran hal taako ka tagee faaruqa famaata ee dhinta famiitatun jaahiliya qaab dhimasho jaahiliya buu ku dhintay jaahiliyadu samci iyo taaco wax lira maysan aqoon ismaqal iyo in wax la iska yeelo la is ateeco ma aysan aqoon madax la ateecana ma aysan lahaa jirin madaxweyne iyo boqor iyo midna ma aysan lahayn qabaa'il kala duwan oo islaaya oo aan kala amar qaadan bay ahaan jirin qofkii marka islaamku markuu yimid wuxuu sameeyey qof madaxa oo la ateeco qofkii taa ka tagaay dhaqankii jaahiliyada mid u laabtay buu noqonaya qaab jaahiliya buu u dhintay muttafaqun calayh wa bihadihi alcalaaqati bayna alxaakimi waalmaxkuum xiriirkaas iyo calaaqada u dhaxeeya kan wax maamulaya iyo kan la maamulayo yasuudu nidaamu ayaa nidaamkii maaragtay uu saa'id ku noqonaya uu ku faafaya calaaqadaas sababkeeda ayaa nidaamkii uu ku hagaagaya watatawatadu arkaanu dowla oo ay ku adkaanaysaa arkaantii iyo dhidibadii iyo tiirarkii dowladdu wayataxaqaqu qowlu nabiyi sal allahu calayh wasalam uuna ku xaqiiqoobaya nabiga qowlkiisii uu yidhi khiyaaru a'immatikum madaxdiinna kuwa ugu khayrka badani aladiina tuxibuunahum wa yuxibuunakum waa kuwa aad jeceshihiin ee idin jecel oo kalgacaylka aad isdhaafsataan wayusalluuna calaykum kuwa idiin duceeya wa tusalluuna calayhim idinkuna aad u ducaysaan kuwaas weeyaan kuwa fiican laakiin kuwa aad isneceb tihiin aad ishabaaraysaan aad is eedaysaan ma aha kuwa wanaagsan
shacab wanaagsan iyo madax wanaagsan halkaa kaba muuqato rawaahu muslim taa waxay ahayd arrinka koowaad ee asaaska u ah asiyaasatu daakhiliya inay hagaagto oo ah in la hagaajiyo alcalaaqatu bayna alxaakim walmaxkuum arrinka labaad wuxuu yahay walqiyamu alakhlaaqiya qiyamka akhlaaqiga walqiyamu alakhlaaqiyatu hiya addicaamatu alqawiya qiyamku yacni arrimaha akhlaaqiga ee wanaagsani waa tiirka xooga badan libaqaa'i lummati ee ummadda baaqi ahaanshaheedu ay leedahay wa sumuwiha iyo sarraynteeda wa majdiha iyo sharafteeda tiirka ay ku taagantaha ummaddu si ay saramar iyo horumar ay u gaarto oo ummaddaasi baaqi ay u noqoto jiritaankeedii mid sugan uu noqdo sharafteeduna mid taagan ay u noqoto waxay ku taagantaha tiirkaas udubkaas walan taquuma ummatun biduuni akhlaaq ummad ma istaagi karto akhlaaq la'aan ummad aan akhlaaq lahayn ummad adduunkan sharaf ku leh oo nolol wanaagsan ku nool ma noqonayso aakhirna iskaba dhaaf wa inama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat fainhum dahabu وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب ومضوا سيدبا وأخلاق أنت أخلاق جرت أي جرا مرد أخلاق أي بابا يوري بابا ولذلك حافظ الإسلام على هذه القيم سيدا درادد أي إسلام وحقوق إلى لي وهو دوري حرمها وناكسا محافظة بالغة إلى حيلدر وأنما وانا كبعي وسيادية بجميع وسائل التنمية وحيالا وحلو سيادية وأردن بوكو سيادية فحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم رسولك أيادتك كبوري ورغب فيها واجع ليسية أخلاق ذا وناكسا وأخبر وحونا شيء وليبا بأنه إساق إنما بعث إن لوصا صاري وكلي لوصا بحيبا ليتم مكارم الأخلاق أخلاق ذا وناكسا إنه دمايستره درتين ليتمم مكارم الأخلاق وإلى جانب ذلك أرنكا دين عيسى وإلى جانب ذلك أرنكا دين عيسى وضع إسلام وحود الحواجز التاديو وحيال قفك كعلينية التي تردع الناس تاسودتك كعلينية عن تحضيم الأخلاق أخلاق ذا بربورين تيدا أو تدمير أما بابين تيدا كما يظهر في الأمثلة الآتية سيدا كم موقانا يستسالوين كسوس عضا يعني أخلاق ذا وناكسن يدقن كوناكسن إسلام ضدك وكبوري وحلا سوكو بكرنا ما أخلاق ذا وناكسن والله وضع كرنية taa waxaa la socota akhlaaqda xun ee dadka dhaqankoodii baabi'inaysana islaamku inuu ka digay dhowr tusaale ayaa taa laga bixinaya tusaalaha kood wuxuu yahay cuquubatu zina zinada cuquubada ka dhalanaysa fazina hadmun lil akhlaaq zinadu waa dumin akhlaaqdii la duminayo bulshada akhlaaqdeedii oo la duminayo zinadu akhlaaq xumo meesha ugu dambaysa weya wahadkun lil acraad waa sharaftii oo la dilaacinayo dadka sharaftoodii oo dhaawac la gaarsiinayo وضياع للأنساب نصب يدي وضياع ما يويا زينة وحي كينيسا ilmo aan la aqoonin abtiriskooda inay yimaadaan ama in loogu abtiriyo dad aan dhalin ومن ثم أوجب الإسلام سيدا درادد أي إسلام كوحو واجبي عقوبة الزنا زنا عقوبة ديدا بالرجم بالحجارة دقح إن لغو رجمي ولغو طورقفك حتى الموت إلى دمشقك قارو إذا كان الزاني مثل قفك زينة يستمرك وياه محصن مركوية يعني مد النكاح صحيح صومري جماع كسو سميه هديوية هذا نقف قنقار وعقل وبالجلد 100 جلدة يصيدو كلين لغو عقابه جيدليد بقل جيدل لغو لفته مع تغريبه كمسافرين تيسيدو إلى جرت عن البلد ودن كيسي لغا مسافرين سنة مدة سنة إذا كان الزاني غير محسن قفك زاني محسن هدي عن وهي عقوبة أدق بمركة الله سبحانه وتعالى وكو حكمية قفك زانية هدي محسن يعني قور وصام مري نكاح صحيحة ومارة نول وكسو قاطي dhagax baa lagu dilaya waa cuquubada ugu adag ee islaamku dambi qof sameey uu ku xukmiyo dhagax qofka in lagu dilo waxay ku tusinaysaa marka ficilkiisu inuu yahay dambi la sameeyo kan ugu fooshaa saas daraadeed ayuu mutay qaabka ugu fooshaa in loo dilo haddii muxsan uusan ahayn 100 jeedal baa lagu dhifanaya wadankiisina waa laga musaafirinaya muddo sanad قال الله تعالى الله وحير الزانية والزاني كبدي زنيستي نينكي زنيستي فاجلدوا كل واحد منهما مد والبو لبدا كميدا جيد 100 جلدة بقول جيد القلفت ولا تأخذكم بهما لبدا سيسن إذين قبان رأفة النحريس في دين الله الله حكم كيسا وح نحريسي يسن إذين قبان
Allah subxaanahu wa tacaala arxamu raaximiin isagaana abuuray addoommadan isagu ku gardaroon maayo dulmi Allah uu iska xarimay marka uu leeyahay hal rajmiyo dhagaxa lagu dilo waa sida xaqi fulintiisii marka adiga inaad tiraahdo xoogaa bani aadanimadii way khilaafsan tahayo in qofkii loo naxariistaa la doonayaa meeshani ma aha meeshii naxariista meel naxariista loo baahan yahay iyo meel xukunkii iyo xaqi in la fuliyo loo baahan yahay ayaa kala jirta haddii cuquubo walbo la fulinaya la dhihi lahaa bani aadanimada ha la fiiriyo qofka maaragtay ha loo naxariisto qofna yaan la dilin baa imaan lahayd qofna yaan la garaacin baan imaan lahayd qofna yaa xabsi la gelin baan imaan lahayd qofna yaa waxba laga sheegin baa imaan lahayd taasna ma suurtagelayso walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diinillah allah wuxuu yiri naxariis yeesan idiin qaban xukunka allah fulintiisa mucjisada quraanka ay ka mid tahayo inay imaan doonaan dad u hadlaya noocaas oo kale oo leh ha loo naxariisto ay aayadu tilmaamaysaa in kuntum wa hadiyatin tu'minuuna billahi wal yawmil aakhir allah iyo aakhira kuwa rumaysan xukunkaas waa inaad fulisaan oo naxariis iyo wax la mid idinkoo sheeganaya aadnaan uga tegin ama haddii allah iyo aakhira aadnaan rumaysnayn haddii xukunka maba fulinaysaan ma aaminsanidi laakiin waxaa nasiib darraa qofkii isagoo le muslim baan ahay haddana inuu leeyahay aniga ma qabo qofka zinaysta in dhagax lagu dilo ama qofkii waxaada in gacanta laga gooyo aniga ma qabo haddii aniga ma qabo ma soconayso adiga haddii muslim aad tahay waad qabtaa haddaadan muslim ahayna ma qabtid marka ma qaba haddii aad leedahay macnidu muslim ma tiid weeye in kuntum tu'minuuna billahi wal yawmil aakhir وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحير البكر بالبكر بكر إنه بكرة كزينيستو جلد 100 waxay keenaysaa 100 jeedal wa nafyu sanatin iyo sanad musaafirinti yani nikaax kii aan soo marin inuu zinaysto saas baa lagu ciqaabaya gabadhina sidaas oo kale rawaahu muslim waqala umar ibn khattab radiyallahu anhu umar wuxuu yiri inna ar-rajma fi kitaabillahi rajmigu kitaabka allah mid ku sugan isagoo ah kitaabka allah xukunkiisa xaqun calaa man zanaa waa xaq ayuu ku yahay ku waajibaya qofka zinaysta idaa uxsina marka muxsan uu noqdo min arrijaali raggi isagoo ka mid ah wannisaa iyo dumarki idaa qaamat ilbayinatu waa markii markhaati loo helo aw kaana alxabalu ama uur uu yimaado aw ilictiraaf ama qirasho muttafaqun calayh marka rajmigu kitaabka allah mid ku sugan weeyaan buu yiri cumar aayad quraanka ka mid oo la akhriyo ayayna ahayd الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله آيات بي أهيد سورة الأحزاب كمد لكن والا النسخي أخرس كيدي حكم كيدينا باقي ويان والنبي صلى الله عليه وسلم أياب حكم كيدي فوليي عمر نوع عليه سداب وحكم كي باقي ويان رقي دمرنا اسكمد بيكي لكن وحا شردية زينة إنا يسقناطو مرقاتي إن ليلو أفر مرقاتي أما اعتراف يقرشو ماشي إنا يجرتو متفق عليه qodobka koowaad marka wuxuu ahaa akhlaaq xumada lagula dagaalamayo zinada cuqubadeeda qodobka labaad cuqubatul liwaadka cuqubadiisa liwaadku waa nin u taga waa faaxisho midda ugu liyato zinada kasii fool falliwaatu huwa alfaaxishatu nakra liwaadku waa faaxishada foosha xun walmusiibatu alkubra iyo musiibada weyn wa huwa maxqun lirujuula waa tirtirid raganimadii la tirtirayo وفساد للمجتمع وفساد بلشدي لفسادينيو وكسر للمعنويات معنويات كي هي نفسدي هي قيمه قفك قلبي كجري قيمه قفك قلبي ugu jiray oo la jabinayo weeyaan وإفساد للدين والدنيا الدين يا الدنيا لفسادينيو weeyaan ولذلك كانت عقوبته سداس دراديد اي عقوبتي waxay u noqotay الإعدام الدل بكل حال حالد walba qofka in la dilo qofkii yani liwaad ka sameeya waxyaalaha nooca in la dilo weeyaan ciqaabtiisu yuqtalu alfaacilu walmafcuulu midka sameeyey kan lagu sameeyey labadaba waa la dilaya qaala nabiyu sal allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi man wajadtumuuhu qofka aad heshaan yacmalu isagoo samaynaya camala qowmi luutin qowmu luutka camalkoodii faqtulu alfaacila midka samaynaya dila walmafcuula bihi kan lagu samaynayana dila labadaba waa la dilaya rawaahu ahlu sunan ayaa wariyey abu daawud iyo tirmidi ibn maajah ayaa wariyey وصححه ابن حبان وغيره ابن حبان غير كنا وي صحيحيين سداس با شيخو يري عبارتنا كل ابن قيم بو كسو قاطي marka ابن حبان ما انه صحيحين لكن حاكم علماء كلا صحيح وهو على شرط البخاري شرط يسبونه كسغن yahay ونقل ابن القيم نوع سو غوري القول باعدامهما لبدود ان la dilo
qowlka iyo madhabka ah can jumhuuri lummati ummadda badankeeda buu ka soo guuriyey. yani culammadii muslimiinta badankoodu waxay qabaan xukunkaas oo ah alfaacil walmafcuulu bihi labadaba in la dilayo, waana sida xadiidka ku jirta. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية. شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كيس اللي يراد السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية وعكسو قوري اتفاق الصحابة على قتل الاثنين. صحابة اسكوا فقين لبضا بإن للدلو، وأنهم لم يختلفوا فيهما لبضا إن يسنسكو خلافين، وإنما خلافهم في نوع قتلهما. خلاف وكسا بسنا النوع اللو دلي، يعني ولا دلي لكن نوع اللو دلي. qolay waxay waa in la gubo, dab baa lagu gubaya. qolo waxay yiraahdeen seef lagu dilo, qolo waxay yiraahdeen dhismaha ugu dheer meesha la joogo dushiisa ayaa laga soo tuuraya, ka bacdi dhagax baa laga soo daba ridaya, oo sida Allah uu halaagay qowmulud oo kale weey. marka saxaabadu way isku waafaqeen buu Ibn Taymiyyah soo naqliyay. masalada marka mas'ala ijmaaciya ma ahan oo khilaaf baa ku jira, laakiin qowlkaas waa qowlka loo badan yahay. Tirmidina wuxuu leeyahay culimada qaar baa qaba in la rajminayo oo yani dhagax lagu dilayo qofka yani luutiga ee liwaadka sameeya, ama muxsan ha ahaado ama yuusan ahayn, labadaba waa la dilaya. alimaam maalik ayaa qaba, alimaam shaafici qowl hore uu lahaa weeyaan, sidoo kale alimaam axmed iyo culamo kale oo taabiciinta iyo keyrkood ka mid ah alimaam shaafici madhabkiisa iyo xanabilada madhabkooda ay ka mid yihiinna waxay yidhaahdeen xaddu luutiyi xaddu zaani. qofka luutiga xadkiisu waa zaanigii oo kale. marka kii faacilka ahaa haddii muxsan uu yahana rajmi baa lagu dilayaa, haddii muxsan uusan ahayna 100 jeedal baa lagu dhifanaya. kan mafcuuliga bihi ahna 100 jeedal baa mar walba lagu dhifanaya isaga. cuqubatu liwaad ayaa marka ka mid ah waxyaalaha lagula dagaalamo dhaqan xumada. liwaadkuna adduunka aad baa hadda maaragtay awal wax fool xun oo afkaba laga ilaaliyo ayuu ahaa, iska dhaaf qofka maaragtay inuu ka sheekeeyo iyo wax lamid ama inuu sameeyo. laakiin adduunka hadda dowladihii ugu waaweynaa ee gaaladu waxayba ka dhigayaan shay muqadas ah oo waxba aan laga sheegi karin, oo xataa wax yar aan la tilmaami karin inuu xun yahay, ama qofku xataa ra'yigiisa uusan ka cabiri karin, aniga kuma qanacsani. xataa qofka hadduu yiraahdo dembi bayba noqonaysaa. hadda waxayna doonayaan adduunkii oo dhanba inay ku qasbaan luutiyiin qowmuluud inay noqdaan, oo la yiraahdo ragga way isguursan karaan, nin iyo nin waa isguursan karaan, haween iyo haweenna waa isguursan kartaa. guur wax la yiraahdo ma jiraan, waa faaxishadaas weeyaan. faaxishadaas unbaa loola jeedaa. arrinta marka waa arrin aad u liidata. nabiguna sallallahu alayhi wasallam horey buu u sheegay inay arrintaasi bado doonto, wuxuu ummadayda waxyaalaha ugu badan ugu cabsida badana waxaa ka mid ah camalu qowmuluud baa ka mid ah waxyaalaha aan uga cabsanayo inay yimaadaan aakhiru zamaanka. arrinta saddexaad ee akhlaaq xumada lagula dagaalamayo waxay tahay cuquubatul khamri, cuquubada khamriga cabidiisa. wal khamru kullu muskirin, khamriguna waa shay walba wax saqraamiya, shay walba la cabo ee wax saqraamiya wuxuu leeyahay xukunkii khamriga oo waa xaaraan. qofkii cabana xad baa lagu oogaya. wa min ajli dararihi fi lcaqli walbadani waddiini walmujtamac, dhibka uu khamrigu ku leeyahay caqliga iyo garaadka iyo jirka qofka iyo diinta iyo bulshadaba, dhibaatada uu ku leeyahay darteed. wa kownihi sababan liljaraa'im alfadiica, iyo inuu khamrigu sabab u yahay dembiyada foosha xun. sidaa daraaddeed ayaa rataba alislaamu calayhi, islaamku wuxuu ka ratibay cuquubatan raadicatan, cuquubo dadka ka celisa, haabitatan bisunnati rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam, cuquubadaasoo ah mid ku sugan sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam, wa ijmaaci almuslimiin iyo muslimiinta ijmaacooda. facan anas bni maalikin radia allahu canhu, anas bni maalik waxaa laga wariyey ana nabiya sala allahu calayhi wasalam utiya birajul, nabiga waxaa loo keenay nin shariba alkhamra, ninkaasoo khamri cabay, fajaladahu bijariidatayni naxwa 40, 2 laamood oo laamaha geetimireedka ah ayuu nabigu ku jeedlay oo ku dhiftay 40 jeedal oo kale. wa qaala wuxuu yidhi anas, wa facalahu abubakrin, sidaasna abubakar baa sameeyo 40 buu ku dhiftay isna qofkii khamriga cabay. falamaa kaana cumaru istashaara annaas, xilligii cumar markii la gaaray oo khamriga cabidiisu ay badato muslimiintiina ay bateen, ayuu dadkii la shuureeyey oo uu tala weydiiyey saxaabada culimmadoodii. faqaala cabduraxmaan ibnu cawf ayaa wuxuu yidhi akhafu lxuduudi 80, xuduud midda ugu khafiifsani waa qofka 80 jeedal in lagu dhifto xadulqadafkii. fa amara bihi cumar baa marka amray qofka khamri caba 80 jeedal in lagu dhifto. marka 40na waa xad ahaan, 40ka kalena waxay noqonaysaa tacsiir ah.
رواه مسلم حديث كمسلم باوري خمرgu marka shayga wax saqraamiya ee dadka caqligoodii baabi'iya waa arrin aad u dhibaato badan waxaana la mid ah oo ku dhow waxyaalaha maandooriyaha oo dhan ee xashiishka iyo maaragtay taambuuga iyo jaadka iyo sigaarka iyo waxyaalahaas oo dhan waa wax qofka caqligiisa iyo garaadkiisa iyo jirkiisa iyo caafimaadkiisa iyo diintiisa iyo cibaadadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo bulshada guud ahaan xiriirkeedii marka la fiiriyo iyo qoyskii iyo ilmihii tarbiyadoodii iyo hantidii ummadda iyo caafimaadkii ummadda iyo nadaafadii waddanka iyo hantidii waddanka wixii oo dhanba wax kharibaya weeye marka in lala dagaalamo waa arrin sharcigu amrayo وهذه العقوبات لها شروط لتنفيذها عقوبات كان لصو شيغي حدود حد الزنا حد اللواط حد الخمر شروط بيلاد لتنفيذها سي لو فليو ما هي اللي اسكو فلين قف والبا لي هلا ديلو اما قف والبا هلا جيدلا ما شروط بيلاد بحيث لا تنفذ لغو فلين مايو الا على من كان اهلا للعقوبه الا قفك اهل عقوبه اسمان وهو البالغ العاقل وقفك قانقارك عقل قف وارن xadkii lagu oogi maayo sidoo kale qof aan qaan gaarin oo caruur xadkii lagu oogi maayo inkastoo la xanuujinayo wala maaragtay la edbinayo la tacsiirayo xabsiga la geli karo laakiin cuquubadan khaaska lagu fuli maayo ama sagiir wal majruur qofka yar iyo kan waalan fa yustacmalu fi xaqihima iyaga xaqooda waxaa loo isticmaalaya ma yakunu bihi arrin uu ku ahaanayo uu ku sugnaanayo mancu hadhihi aljaraa'im dembiyadan in la reebo xasba ma yaliiqu hadba sidii munaasib hadba sidii munaasib iyaga in la edbiyo unba loo isticmaalaya darsigu halkaa noogu joogo wallahu aclam sallallahu wasallam ala nabiyina muxamed wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin